kusoo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed wali waxaanu ku jirnaa aafadii waxaanu markaa caawa barnaamijkeenu noqonayaa qubane sidii inuu ahayd caadada 3 ilaa 4 qodob oo siyaasad leh oo majaajil leh oo baroordiiq leh oo ku bilaabaya wariyihii samafalaha ahaa ee caanka ahaa ee wali garbaduubka ugu xiran coldoon weeye ninkan ka hadlaya maanaani laawin wadabtiisu meeshay taalana dhammaan dadka dulmidiidkii way ogyihiin isaga iyo ummadda kale ee ay isku nooc yihiin ee meesha ku xiran wadaadkii arab ee culimadii diinta islaamka ee meesha ku afduuban ay ka mid tahay ee u afduuban wax magaratada ah dadka dusha kaga digtay ana afada ku horeeyo way laba xaas lahaayo magaalada yar xagga naga xigta deganaaba labadii xaas ba waxa la yiri caws jilaal cambaan u tib labadii islaamood midna muu aadine isaga la fiisu boqo ciidankayaga soo aayo meel karantiiro ku teelaho waxoogay lagu koraysto isku xiro islaamii mid kamid ah wax ku soo bodan kuudiyo waxa mooyo sidii kala shito warodeegi idinku idugu maqnaaye u soo dir carruurta la joogay kuudaayay omayaan idinka idugu maqnaaye meet anaga nagu maqnayn ceebo badan ayaa soo baxaya odayaanu saaxiibnaayo ingiriis aanu jaarnaayo ninka boobay ah ee maalin saddexaad mise maalin afraad halka meesha carruurta ku yaato soo dhoobo walaaqayo muraayadahan waaweyn la yiraahdo daba bakeeri ama bakeeri dabadii muraayadahan thiga ah gashta halka dhoobo ka walaaqaya daaqada furaasa soo noqdeeyay ma inuu isku tarbiyaacay intii afadu soo dhacday se wuxuu jiraa ma ku yiri 60 sano dib u noqday buu nimsa 7 sanadood baa dib u noqday laakiin nasiib darada haysta waxa weeye afada ay keentay afadan corona hooyo ugu taawar dhooqada ka soo hooyo ma haysto ma santaa ugu tiri dhooqada ka soo hooyo taasi na wata waxaanu soo dhaafnay sanad guuradii 60aad ee xoogii dalka Soomaaliyeed waana arkayseero madaxweyne Deniga Puntland iyo Jeegaanland labadu ay ka qayliyeen aan kala qaado jeegaantu maxay uga qaylisay jeegaantu taariikhdeedu waa inay ka bilaabantaa 1995 xoogii dalka Soomaaliyeed koonfurta ciidan military ma lahayn police bay ahayn maxamed siyaad barre police ku ahaa galaal general galaal police buu ahaa general Haynaashi police bay ahayn liiqato wuxuu ahaa ciidankii police ee lagu soo bedelay militariga waqooyiga ayuu ka tagay ciidankii militariga waxa hogaaminayay oo dhan 90% ciidamadii militariga ka tagay waqooyiga waxaan garxajis waa Cabdi Yuusuf Colonel Cabdi Yuusuf waa Colonel Xasan Kayd waa Colonel waa General Ahmed Salman Abdalla Dafle والله صل على محمد ونكي عبد الله كونغو كورنيل كاها iyo ditira aan tirin karayn oo tirabeeshay sababta awgeed ayaa looga diday waxa looga diday ciidanka daraawiishta ama ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee jeegaantu u diidaan ama qoladan ba ay maka u diiday oo ku noqon doona deni wixii kuwa jeegaantu qorshe loo warsangeli ah nahartii aba hogaaminayay jaamacada ku xigay ciidankii jeelka waxa uu hogaaminayay Ismaaciil Axmed Ismaaciil oo sida garxajiisa taariikhdaas oo dhan waa la aasay sidii tii saramta loo aasay mujaahidiinta cusub ee ugu soo baxeen aan meel laga dagaalamin dhiigoodana aan meel ku xadin laakiin buugta iyo madaxafyada ku xardada taariikhdan cusub modern history baa la yiraahdaa ama taariikhda beenta arintaas ay deni ninka la yiraahdo oo ku andacoonayay hadallo aan aad u macquul ahayn isagoo hartigii la joogay ninkii baarlamaanka joogay ee warsangeli adoogayeen duhur cad inuu ciidan ku weeraray daraawiish iyo military isugu jira oo reer Puntland ah oo meyd ku batay baarlamaanka oo ku batay afreeri lagu kala bixi lahaa ayaa wuxuu ku andacoonayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu leenahay siyaasiyiinta ka madax banaanaada war adiga maxay uga madax banaanaan waayeen markaad weeraraysay dhooba daarood ee nimankii warsageliya halka ilaalinayay meydkooda la dhigay adigiiba Cumar Maxamuud Shisheeye oo arkaa oo ka didaya oo le looma dhama ciidamada federaalku manaha ciidamo qabaa'ilka Soomaaliyeed oo dhan ka dhex muuqdaan kuwa Puntland ku hayso iyo kuwa Jeegaanland Hargeysa ku haysto ciidamo ka dhex muuqdaa kal shaale ayaa inta lagu dareeray ulbaante sida caleenta ciidan qabiil ah oo hubsita oo kuwa sheegay qarankiisii ay ku galeen miyaad ka hadashay waa daawanaysay dabarkiisu oo waydu uraah waana dabataan marka waxa weeye hawaawirkii nimankii madax goboleedada haysan jiray sida Jeegaanland iyo Puntland iyo xilligiiba ku soo ururaya ta wax dan oo ma jeerteen loo haya dan aan isaga reerkiisa iyo shakhsiyadiisa ahayn sida kuwa Jeegaanland ma jirto marka waxa weeye habarba hawle heelada inoo tuba angalo nasiib daradan in haysata waxaan arkay dad ay jiidayeen oo ay lahaayeen coronavirus bay qabaan ninkii odayga ahaa ina cali koore iyo ina kaahin iyo qofka viruska qaba waa mamnuuc
in qofka kale u tegaya u taabto soo jiida gaari soo saara kuwa jiidaya kuwa gaariga la kora intaba viruska way kala qaadayaan aqoon daradii uu ka hadlayay ninkii ahaa ee suudaanka guudaha arab suudaan cumar ayaa halkaa inooga muuqata taa dib ayaan ugu dhigi doonaa dr bayle dowladnimadu haybad bay leedahay horeen uga soo hadaleyn badan dr bayle qabyaalad kuma iman waa nin samaroon ah aqoontiisuu ku yimi kartidiisuu ku yimi nin daarooda weeye ninka magacaabay wasiirka difaaca meesha jooga iyo taliyaha ciidamaduba waa hawiye baarlamankii waxaa loo dhiibay nin isaaqa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii waxaa loo dhiibay nin hawiye isna ku-xigeenkiisii waxaa loo dhiibay nin isaaqoo garxajisa waa ummad sidaa isugu dhafan waana qabyaalad lagu dooranayaa kartile oo isla shaqayn karaya labada meelood kale puntland iyo somaliland ama jeegaanland midna inaa idin sii dhexgalo dooni maayo mawduucaygu wuxuu ku socdaa habartii tiri habar reer xamar ah reer koonfuraba lo ka luntay mise saac odayg bay warbalwadaad noogu nabaadiina xidho waxaa loo yeedhay nin odayo markuu qur-aanka ka dambeeyey u tegey ayuu waa imaan doonaa ya akhi ilaha tuugaynaa odaygeed bay war ninkuyuu ahaa markaasuu waa duduble waxaa ti ilaahu duco duduble ha igu haleene saceegii adaa magankaaga ahee ikaan ninka la yihahdo ina cali shire sacad cali shire ummaddan waxba uma soo haye ilaahayow ummaddan wixii iyaga aad u keenayso iskood ugu keen mashiinka ay xamar ka soo qaateen ee lagu baadhiyay viruska ee china laga keenay ee lasoo mariyey ninka la yihahdo calibaba ee chineska ah ninka ugu milyaneersan china ayaa arkaysa lahayn meel baanu kasoo helnay dhinacalika hore waanu soo iibsanay ninkaasoo ka tirsan ummadda misleadingka ummadan kale ee meesha lagu haystay jeegaantu haysato dadka ay u samaysteen mid ka mida kuwa ugu waaweyna waxaas ayuu ku tiraabayay bayle wuxuu sheegay in dhammaan laga dhaafay ummadda soomaaliyeed inta ayagu gacanta ku hayaan cashuurtii bariiska iyo timirta maadaama ay ramadaan tahay coronavirusna uu ku dhacay xagga kale qaadkii cashuurtiisii qaadlayaashii baa qaylinaya wala warqaadka waanu joojinaa leeyahay joojinina jeegaanta cashuurteedii lama joojin karo waayo jeegaantu waxay ku nooshay waa tagfida oo kale ama waa dulinku xooluhu haddii laga buufiyo dhiigitii lagu shubo xooluhu ma dhintaan dulinkaa dhintaa dulinkii baa dhimanaya ku koray beenta iyo baadhashada ummadda inteeda badan ee meesha joogta wuxuu kale 50% ka dhimay ninka dr bayle oo nin aqoon ku yimi aan cali shire wuxuu ku yimi nin dareewal ka ahaan jiray magaalada burcabo isaga aabihiiba qabyaalad indhala ayuu ku yimi lacag uun baa markaa la ururinaya cashuur ah oo miisaaniyadii may buuxsamin inkasta xagga caalamka ay kasoo xidhmayso sokortii 50% ayaa ummadii laga dhimay 15 milyan oo dollar oo kalif ah ayay iska ururiyeen oo loogu talagalay la dagaalanka cudurkan aafadan corona halkan maxaa laga ururiyay dadkaas suuqyada laga guranayaa RRU baa guraysa meel baa lagu xareynayaa markaas la dawarsi tagaya oo hu dib loola hadlaya World Health Organization kii ayaa dib loogu baryayaa business cusub oo dhiig ummadda lagu khamaarayo iyagaaba dadka isqaadsiiskiisa madax ka noqonaya waxay dhahaga soo jiitay dadka Soomaaliyeed ee aqoon-yahanka ee cilmi naalaye ee waddanka Canada ka hadla ninkaasoo aan muddo dheer dhageysanayay YouTube-kiisa ninkaasoo aadna aqoon-yahan u bareer leh aftahamana leh falanqeyru ka soo qaatay Dr. Ali Khaliif Galayd ninkaasoo ah dadka Soomaaliyeed maanta si nool dadka ugu aqoonta badan leh inkasta aan isaga ku raacsanayn meeshuu imika uu la dhaqaaqay reerka la yiraahdo dhulbaantay ama harti waqooyi ninka waxa ka mid ahayd doctorkaas arrimuhu ka hadlay waxa ka mid ahayd inaan wax loo furayo iyo wax loo ogoliyay midna aan jirin meeshana ay magan ku yihiin nimanka harti la yiraahdo ama martiya wuxuu lagu siiyana qaado wuxuu lagu yiraahdana aqbal in lagu yiri taana nin qaadi karaya doctorku maaha arrinta biya kama dhicbaanka ah ee dadku oo dhan wada gaarsiisay waxa weeye wuxuu dhammaan waxa madax dhaqameeda ee uu dhulbahanti ama warsageliyay ee jinka dagaagay ah lacag ayaa laga siiyaa madaxtooyada jeegaanta ilaa waqtigii silaayo inta halka waxa lagu darayaa dhammaan jinka dugaagayga ay leedahay samaroontu ee maamadaha iyo cigaalka inoo qaata ee territoriska ah ee wadanka ah ee ummadooda ka soo jeeda waa divide and rule haddii madaxa laga qabsado oo lagu sameeyo fake madax dhaqameed fake culimo fake siyaasi waxa weeyaan waa wixii uu ku shaqaysan jiray midoogii Sovieti marka ummad la baabiinayo saddexda baa laga weeraraa subversion baafka qaraad la yiraahdaa waxa weeye jaahwareerin
ama ila meeraalaysadii ninkii arab soo saaray cali khaliif wuxuu inala qiray wixii aynu muddadan balleyrka ku haynay wuxuu intaasiba waxay mushahaar ka qaataan madaxtooyada waxay u qaataanna maaha dan dhulbahante dan harti inay ilaaliyaan sidii dhulbahante loo qaybin lahaa loona xukumi lahaa la isuguna dili lahaa nimanka meesha jooga ee biilka ku qaata ee jeegaantuna ay u sii noolaan lahaayeen kuwa garxajiska ah ee jindagaayaga ah ayaa iyana biilkaa ku jira ee madax dhaqameedka ah ee aa wada taqaanaan ragga cimaamadaha usoo qaatay ma wada caayano madax dhaqameedka ay soomaalidu leedahay rag badan oo nadiifa ku jira waa taqaanaan waxaynu ka hadlaynaa waa jindagaayaga mushahaarkaas ay qaataan ay reerkooda ku baabiyaan kuwa samaroontaa ka mid a arrinta la yaab kale waxa weeye kuwa jeegaantu lacagtaa miyay qaataan haa way qaataan iyagu waxay u qaataan sidii laysugu hayn lahaa jeegaanta nimankan kalena ay ugu hayn lahaayeen siday reerahooda u kala burburi lahaayeen mahmaadii uu cali khaliif ku mahmaahay waxay ahayd markuu meesha yimi war distoorka hala inoo furo waxaa loogu jawaabay saleebaan gaal 2 nin baa wax wada saxeexday midna waa halkaa ku naanaabay ee fadhiya adna hargeysa dhex wareegaysa waxba meesha kuma yaalaan weeye kuwa kalena ee majority-ga dhiigooda meesha ku xardan yahayna ee aan waxba idii online horaa laydigu sheegay duhur cad ee yackoogii doorashada iyo beentayna ku noolayn inta laydii soo samaystay rag iyo ciidan uu waliba inqilaab dhiig ku daatay kiisiyaadba dhiigba ku mudaadane ayuu idigu dhacay waaye waa arrintaas waxa weeye divide and rule waa sida bini aadanka lagu maamulo wax magaradkiisa laakiin waxaad moodaa ummadii imika inay iska soo taagtay maalin dhaweyto nin baan la hadlayo raggaa tifiyada hargeysa milkiilayaashiisa nin ka mid ah kasaane magaciisa xuseynin aan rabay inaan program aan duubay oo aanan weli soo gelinin youtubada aan u diro oo xaqiiq iyo evidence fara badan oo wada sawiran ku saabsan arrintii madxafka iyo meeshii laga soo sameeyey dhisaynkiisa iyo lacagtii lagu bixiyey iyo waqtiga ahayd iyo waraaqahay u direen iyo waraaqahay soo direen xuguliyow waa si wanaagsan ogow dhammaantayo waxaana kor saaran monitoring baanunay nabad sugidda CID-da ayaa wax allaale waxaanu hargeysa kasoo daynayno intaanan siiba daynin maalin ka hor inaan u gudbino ay tahay xisbigii shuuciga ayaa igu haysta meesha wax dimuqraadiyad la yidhahdaa ma jirto marka meesha carruur baan ka biishaa ha iga xidhin laakiin nin aada aqoon-yahana buu hayo erey iqanciyey buu igu daray waxaanay ogeyn buu yidhi inay ummaddii iska badaysay inay tiifiyadii hargeysa kulahaa saldhigyada iska badaayeen daawashadeedii radio hargeysa iyo TV hargeysa haba inoo dambeeyaan buu labadaas kuwa yagii ayay dadkii Soomaaliland naceen markay arkeen waxaan ku shaqeyn oo dhami inay tahay dowdarnimo oo dadku waxa u beereen social media marka nimankan 80-nadii bay nool yihiin inay media kale oo parallel oo barbar socota oo ummadda wargelinaysa jirtaba ma oga marka aan arigana bariiskayga hayga ciideynin aduguna waqtiga iska lumo intaan ku wada soo gelinayaa hadhow meesha ha ka waay isla ninka aqoonyahanka ah ee guurtida ka soo jeeda guurtida waaweyn ee dadka aan lacagta qaadan ee nasabka ah Suldaan Cumar ee Suldaanka guud ee Arab wuxuu maanta ku tiraabay wixii ay garxajisku ka qaylinayeen buurta dushiisa lahaayeen meel la wada leeyahay inkastoo anigu aaminsaneenba meel la wada leeyahay inay jirtee meel minority iyo majority uu hoggaan ugu xidhay kayna Suldaan ay tahay ninkaas Suldaanka ah hadalkiisa rasiidnima ka muuqatay warkada muusow ayuu ku yiri habeenkiina wuxuu yiri ciyaarta maalintii habeenkii iyo bariyada maalintii kala daaya mar walba qulbado la gasho farmaajo dadkana aad tiraado gole caalamiya ayaan ku garnaqsanaynaa ka yeelimayno hadallada dhaxalgalka ah ee Suldaanka Arab uu ka tagay waxa kamid ah ceello ma qodna cidina ma maqna dhalinyaro ay soo baxa oo wixii gacanta ku qaata hadalkiisa aanu markaa fasirtay waa arrinteedu ku tiraabaynay muddada dheer ee ahayd war mucaaradna ma jiro muxaafadna ma jiro ee lagu soo dhaqaaqo Rabiicul Carabkii aqoonyahankii waxgaradkii madax dhaqameedkii way isla arkeen dir iyo daaroodba in aanay sheegaanay ummadan 10 qof yani 9 qof jeel ku sii haysan kareen hadaan dad wuxuu dhibay yahay waxa kale oo laynagu abuuray oo ugu badan website-ada laftooda aragteen ee ka madax bannaan leh waa tii website-ka la yiraahdo Harunaan News gabigiisa la xiray laga xidhay ninka inuu sii la yiraahdo nadkiisa markii doorashooyinku sheegtay inqilaabku ay socotay wax kale ma aha xaqiiqda ha sheegi weeye waxa la isku haystaa وحسب أنت وذاك عاك سوالي موسى يا عروتي يا ولادي يا بابك يا دول بابك يا إسلامتين حاج براعي قال كده تي قيلة ده يا وحاس أورد لقى ما حد يكره تيفي كود عايز يسود ده يامبشرو وبسيطة ده أنت بدن قارنها شباب بالوها يا قار بدن أو هاي ستان
dadkiina majority meesha joogo oo magacyo la baxay tuulooyin ah ama magaalooyin caama ama qaranna la baxay iyaga laftoodu waxay qayb ka yihiin nimanka jinka dagaagay ah ee lacagta qaata ah wasiiradaasina iyaguna lacag ayay qaataan mar walba waxaad arkaysaa booba ducaale cali guray baqdaadi muuse bixi maxamed kaahin iyagaaba ka horeeya durbaanka radio hargeysa websaytadaas iyagaa kasii horeeya oo durbaanka kasii horgaraaca nimankaa qaran news baa kamid a tusaale ahaan ood weynaa kamid a porama news baa kamid a waxaas oo dhan waxa weeyaan kaashilayda ka tagsan jin dagaagayga lacagta la cuntaa nimanka la yidhaahdo haddaad wax u dirtana haddaad arrintaas soo geliya oon arrintaasi khusaynin arrintaa jeegaanta ay tahay xaqiiqata kor istaagayso markii jawaab ama ka heli maysid ama kula soo hadli maayaan waana weydiin kartaan dadka arrimaha ka shaqeeya waxaa kamid ah arrintaa uu suldaanku kor istaagay ee uu ku tiraabuu ku celceliyey war ku celiya wuu dhakhaatiirtii guddidan samaysteene guddidan cali kooriyo maxamed kaahin ay horkacayaan labadaa nin waa ninkii indhahalaaye ninka indhahala hogaaminaye ka daaya oo dhakhaatiirtii ku celiya waxaanay ka hadlayaan maba garan karaan icid weeye icid hala cabo ayada imika inoo soo socota ama waxaaba inagu daranba illusion 76 diyaaradda la yihahda raaca baasaboorkiina iyuda ku gala waxaasaa inagu soo socdaa taasuu uga digay waxaan kusoo khatimayaa dhicii iyo boobkii waddanka lagu hayay iyo jagooyinkii islaamaha laysku haystay waxaa inoogu soo biiray ninka baqdaadi la yidhaahdo iyo ninka la yihahdo inaa carwo waa ogeydeen wixii ingiriiska kaga socotay isaga iyo reerkoodaba lacagta ay ka dhaceen musuq maasuqii loo xidhxidhay ee ingiriiska loogu xidhay imikana baanka laygu geeyey baan buu ka shaqaynayaan labadaa nin ee baqdaadi iyo ina carwo oo budhcada oo maanta la shaqaysanaya ninka la yihahdo ina muuse kaahin ina muuse biixi ayaa waxa dib loo soo abuuray mashruuc kale oo kii madaxafka ahaa ee hore loo siiyey walaalkiia oo la yidhaahdo 15 dabaq oo ah bankigii dhexe ee ummadda sheegaanta soomaaliyeed kaas oo ay ku bixi doonto lacag ay ku qiyaaseen ilaa 11 ilaa 16 milyan inta u dhaxaysa yaa soo design garayn doona waayo lacagta 560 inankaa leh oo madaxweynuhu dhalay waxaa soo design garayn doona waraaqyahan idii sheegayey iyo arkitektaradii cusbaa ee inagu soo baxay ee mujaahidiinta cusub ahayd ee kusoo biirtay booba ducaale iyo cali guri iyo muuse biixi iyo maxamed kaahin ayaa arrintaa design garayn doonta arkitektaradaas oo mar labaad dib ugu noqon doona waddanka masar ama bangladesh si lacagtaa loo soo kala goosto halkaana dabaq laydiiga taago ummaddii aafada coronavirusku haysayna maanta oo laga wada hadlayay 15 dabaq baa la dhisayaa cashuurtiina lagama dhimin qaadkiina lagama joojinin 3 gambo oo meel loogu qoray oo lagu badbaadinayaana ma jirto waxa la xoog baa laydigu soo urursanayaa meel baan idigu xidhanaa kamarad baan idinka qaadanaa waxaan wax idinkaga cunaynaa idinkaga raadsanaynaa nimanka la yidhaahdo adduunyada iyo caalamka ayaa laydigu dawarsanayaa marka waxaan ku leenahay mar labaad sidaa uu yidhi suldaanka guud ee carab ummaddu ha soo dhaqaaqdo dhallinyarada gaar ahaan idinku isu abaabula kooxa samaysta aad leedihiin oo kuwa heegada ee la sameeyey maleeshiyada oo kale u dhigma oo ku wada xidhiidha iminka media haysataan whatsappada ku wada xidhiidho group whatsapp leh facebooka ku wada xidhiidha ballama soo dhaqaaqa sabotage gareeya joojiya dhacan iyo boobkan idigu socda caalamkana u soo baxa sheegaantu wax isu keeni karaysa maaha waa dadka ugu itaalka daran leh uguna nugul ma xamili karaan hal qof oo meel ka soo baxo la hadla hal xaqiiqo oo bani aadan oo af Soomaali ma xamili karaan sababta awgeed bana cadaadis loo saaray waxaasoo dhan wixii la cadaadin kari waayeyna looga dhigay jinka dagaagay ee reerahooda lagu maalayo sida jin dagaagayga madax dhaqameedka ah jin dagaagayda website-yada ah ee ayagu adeegsadaan jin dagaagayga idaacadaha ah jin dagaagayga TV-yada ah jin dagaagayga aqoonyahanka sheegta ee meel walba idinkaga soo baxa ee meel ay ka hadlayaan iyo meel ay u hadlayaan aadan garanaynin laakiin iyaga saddexdaa institutionka ciidanka ah ee Cheganland Armed Forces-ka ah madax dhaqameedka sheegaanta ah ee xoogan ee dantiisa ka shaqeynaya meel kasta uu taagan yahay siyaasiyiinta ay leeyihiin ee ugu horeeyo muuse saaqoorto wada maroorinaya intaas oo dhan baa lagu soo samaystay intaad cidla fadhiday ka kaca ciidimo maqna dhalinyaradu ha soo baxdo 3 cisho wallahi aanay idigu qaadanaynin anaga idiga naqaana ragga carabi jiray dhammaantiin waa mahadsantiin